kadib markii muddo 2 bilood iyo dheeraad ah loo fadhiyay sidii loo xalin lahaa dhibaatadii ka dhex dhacday reer Fiqi Maxamed ayna waantaas ku dhex jireen reer Xaaji Saleebaan markii dhibaatadaasi qoto dheer uga fiirsadeen ayna u saareen guddi xalka soo gaara waxay u kala qaadeen arintii 2 qaybood oo kala ah dhaqan ama dhiig dadku yaqaan iyo dabaqo waxayna go'aan ku gaareen sida soo socota qodob koowaad dagaalkii xaraari aagiisa reer Fiqi Maxamed waxa uga dhintay 33 qofood 33 qofood 29 kamid ah saf ay ku dhinteen dagaal saf ay ku dhinteen 4 qofoodna waxay ku dhinteen dagaal kali ah oo dadka dilay la yaqaano ama qofkii dhintay oo 29 qofood oo safka ku dhimatay kamid ah waxay reer Xaaji Saleebaan ka soo qaadeen calaa qof 10 halaad oo harshi ay tahay $500 oo ay u dhiganto 29 kaas qofood qofkiiba $5,000 afarta qofood ee kale waxay reer Xaaji Saleebaan ka soo gaareen ama ka soo qaadeen diya buuxda dhammaan diyadaas afarta qofood iyo 29 qofood xuquuqda halkaas ku qoran dhammaantood waxa garab ka saartay oo bixinaya reer Xaaji Saleebaan waxa reer Xaaji Saleebaan maanta sameeyeen oon horeyna loo arag dibna in loo arki doono zamanul aakhirka aan ogeyn inaan ka faaloodo oo in dhan ummadda dhan kale ogeysiyo mashriqi maghrib ay gaartaan rabi lahaa reer Xaaji Saleebaan yeeleen waa noo danqadeen dhibaatana soo gaartay ilaahay baa mahad iska leh ayakana mahaduha ka gaarto waxaan malaysan weynay bayba noqdeeno waxaan niri waa waxaan u dooranay mashriq iyo maghrib waa gaartay hal ruuxa jeexiis shariifna ha ahaadee oo reer Xaaji Saleebaan ahayn maanta arinteeda gali ma hayaan ilaahay waa ku guuleeyay waa aqbalay wixii wasiirku akhriyay oo dadkii dhintay oo ay kala qaadeen aha sidaas uu sheegay baa run ahayd shirkaan Allah ka dhigo mid Soomaaliya oo dhan kale heshiiskan mid Soomaaliya oo dhan Soomaaliya Allah ka dhigo mid Soomaaliya oo dhan taabta Allah ka dhigo mid aan dib dambe ka dhicin dadka walaalka oo ehelka oo loo yeelan Allah ka dhigo waxa laga akhriyay waraaqda adduunyada waxaan haddeer ka hor ka soo dhicin ayaa shaqadaani ku soo baxday waxay tahay niman dareeray oo dagaalkood la dhexdhexaadinayo oo wixii ka dhexdhacay oo dhimasho ah waa la idinka dulqaaday la yiri hadda ka hor sooma dhicin mar haddii la dareeray oo reer Fiqi Maxamed dareereen reer Fiqi Maxamed inay niman isku wada dhashay oo isu dhow yihiin baan aragnay mar hadday isu dhow yihiin 2 nin oo wada dhalatay oo dirirtay nin mag laga qaaday nin mag loo qaaday la aqoon waayay mar haddii ay noqotay 2 nin oo wada dhalatay wixii ka dhacay waxaan garanay meeshaas waxa in laga dulqaadan maahane inaan loo tiiriyo la aqoon ummadda dhaqanka ay waxay taqaanaa dad diriray la isu tiriyo dhibaatada dheeriga la siiyay qoladii dheeriga laga yeeshayna dheeriga ay dhowrato waa nala noqon weyday oo isku xira wixii ka dhaceen isku xirana ka soo baxeen amar haddii la yiraahdo wax nafiyo shaydaan ka taliyana ay noqdeen waxaan ku soo dhaweynay oon ku soo aruurinay walaalihii la dhashay maadaama aan nahay waxa dhacay inaan ka dulqaadno wixii nagala qayb qaadan karana aan ku soo